aniga iyo xaaskaygu waxaanu kuu daryeeli doonaa si qof loo daryeelo sida ugu wanaagsan. waxaadna noo noqon doontaa hooyadeeda labaad. hooyadii ayaa igala kaa dardaarmatay inta aysan dhiman ka hor. haweenaydii aad ayay u faraxday waana u bushaaraysay. wiilkii baariga ahaa waa uu guursaday, waxaana u daryeelay si aad u wanaagsan. maalin maalmaha ka mid a waxaa soo galay guriga nin qaylinaya. waxa uu leeyahay iska cafi, waxaan sameeyay khalad aad u weyn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada saaxiibayaal, waa mar kaliya muuqaal cusub. muuqaalkeenna waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad u cajiib badan. waxaa jirtay haweeney taasoo da'deedu kor dhaafisay kontomeeyaha. waxaa ku dhacay xanuun kaasoo sababay inuu ninkaygu furo. maalin walba waxaa laga dhaqi jiray labadeedii keliyood mid ka mid a. waa uu furay ninkii, waxa uuna aaday haweeney uu islamarkaa guursaday. iyadu nolosha keliya ayay ku tahay, xitaa wax awlaada ma haysato. waxaaba u sii dheer xanuun keli aanshaha nolosha. maalin maalmaha ka mid a waxa ay dareentay xanuun aad u badan. waxa ay ku sugnayd dhakhtarka gudihiisa. waxa ay gaadhay xaalad aad u adag. waxa ay isku dayaysaa in ay dib ugu laabato gurigeegii si ay halkaa nafis ugu dareento, maadaama ayna dhakhtarka caafimaad ay ku joogta aysan haysanin. waa ay dhaqaaqday. garabkayga waxaa ka dhowaa haweenay kale oo iyaduna 60 jir ahayd, taasoo iyadana labada keliyood laga dhaqayo. waxaa la socda haweenayden wiil ay hooyo u tahay oo baariya. waxa uu arkay haweenaydii la soo furay taasoo u socota gurigeedii, laakiinse xanuun aad u badan dareemaysa. waa uu ka daba cararay, waxauna ku dhahay, waxaad isugaysaa inta hooyadii laga dhaqayo keliyaha, islamarkaana adigii hooyadii waxaan idingeynayaa guriga. waa ay ka oggolaatay codsigiisii, maadaama ay itaalkaygu aad ugu daran yahay. hooyadii waxaa laga dhaqay keliyihii, islamarkaana waxa uu qaaday gurigii iyadii iyo haweenaydii la soo furay. waxa uu keenay gurigeedii. haweenaydii la soo furna rabbi ayay u mahad celisay, waa ayna u ducaysay wiilkii. waxa ayna ku dhahday, rabbi waxaan kaaga baryaa inaad guulaysato, waxaad jeceshahay inaad hesho. waxay dhahday, waxaan ogaaday in dadkii wanaagsanaa weli aysan dunidan ka dhammaanin. waxay dareentay hooyanimo ay ku taamasay wakhti badan in ay mar uun hesho. waxay aad uga heshay wiilkan baarigaas siduu ula dhaqmay. hooyada wiilka dhashay ayaa waxay tidhi, wiilkayga aabbihii waa uu dhintay. nasiib darro, laakiinse adeeradii ayaa waxay ka qaateen xoolihiisii, kuwaasoo aabbihii ka dhaxlay. wiilkaygu ilaa hadda waa uu xidhiidhiyaa, ma uusan goynin qaraabada. iyaga oo waxaa xun ku sameeyey, keliyaata rabbigii ayuu u tala saartay. wiilkan baariga maalin walba waxa uu soo qaadaa haweenayda la furay, waxa uuna keenaa dhakhtarka, islamarkaana waxa uu ku celiyaa gurigeeda. maalin walba sidaas ayuu samayn jiray. maalin maalmaha ka mid a waxa uu ku dhahay, waxaan rabnaa aniga hooyada inaan aadno cumrada. waxaan jeclaan lahaa adiguna inaad raacdo. haweenaydii waxay ku dhahday, waan jecelahay, mar walba waan ku hamiyaa, laakiinse taas aanu ma awoodo, maxaa yeelay ma haysta lacag aan ku tago. wiilkii waxa uu ku dhahay, keliyata waxaa soo qaadataa baasaboorkaaga, hana ka warwarin wax lacaga. haweenaydii aad ayay u faraxday, waa ayna la yaabtay wanaaggiisa. waxay isku diyaariyeen inay cumraystaan. nasiib wanaag waa ay soo cumraysteen, iyaga oo nabad qabana waxay ku soo noqdeen waddankoogii. inta ay dariiqa ku sii jireen, waxa uu la dhaqmayay haweenaydan sida hooyadii oo kale. waxay dib u bilaabeen inay dhakhtarkii aadaan si keliyaha looga soo dhooqo labadoodaba. wiilkani mar walba waa uu sii kaxeeyaa hooyadii iyo haweenaydan, isagoo islamarkaana dhakhtarkii geeya, kadibna waa uu ka soo celiyaa, waxa uu keenaa gurigooga. maalmo badan ayay sidaa ahayd noloshoodu. waxaa timaaday maalin aan lagu xisaabtamayn, laakiinse maalintaasi qof walba oo dunida saaran waa ay ku xisaabtamaysaa. hooyadii waxaa haleelay xanuun aad u badan, waa uu la rafaaday maalmo badan, laakiinse ugu dambayntii waa ay geeriyootay. dunidanna isaga keliya ayay kaga tagtay. haweenaydii la soo furay aad ayay u cabsatay, waa ay naxday, maxaa yeelay saaxiibteedii ayaa dunidan ka safartay. iyadu hadda waa ay rajo dhigtay, quusna waa ay taagan tahay, maxaa yeelay waxay malaysanaysaa
in ay nolosheedii hore ku noqon doonto taasoo ahayd kelinimo. maalintii xigtay wiilkii waa u tegay haweenaydii, waa uuna soo qaaday dhakhtarkii ayuu geeyey, laakiinse aad ayuu la yaabtay maxaa yeelay waxay malaysanaysay in ay halkaa keligeed ku ahaanayso. maalin walba waa uu soo qaadaa, waxa uu keenaa dhakhtarka, kadibna waa uu celiyaa. maalin maalmaha ka mida waxa uu keenay hadiyado fara badan, waxa uuna ku dhahay ducadaada Rabbi waa uu ii aqbalay, adeerayaashayna xoolahaygii waa ii siiyeen, bisha soo socotana waan guursanayaa. aniga iyo xaaskaygu waxaanu kuu daryeeli doonaa si qof loo daryeelo sida ugu wanaagsan, waxaadna noo noqon doontaa hooyadeeda labaad. hooyadii ayaa igala kaa dardaarmatay inta aysan dhiman ka hor. haweenaydii aad ayay u faraxday, waa ayna u bushaaraysay. wiilkii baariga ahaa waa uu guursaday, waxaana u daryeelay si aad u wanaagsan. maalin maalmaha ka mid a waxaa soo galay guriga nin qaylinaya, waxa uu leeyahay iska kay cafi, waxaan sameeyay khalad aad u weyn. wiilkan iyo xaaskiisu waxay dareemeen inuu ninkan yahay ninkii haweenayda soo furay. waxa uu leeyahay iska kay cafi, khalad weyn baan kaa galay, laakiinse iyadu waa iska cafisay. wiilkiina aad ayuu ugu farxay maadaama ay iska cafisay. ninku waxa uu leeyahay maalinta aan kaa tegay wixii ka dambaysay noloshaydu waxay noqotay mid mugdiya. waxaan ku noolaa nolol ciriiri iyo walaaca, ma aanan helin maal iyo awlaad mid toona. iska kay cafi ayuu ku celcelinayaa.